الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد maanta waa maalin sabti ah maantoo kale waxaan qaadanaynay duruustii imtixaanaha ahayd waxaan kusoo gudi jirnay sixirkii aan ku jirnay waxaan usoo qeybinay sixirka sagaal qeyb u qeybsamaan soo niri sagaalkaas waxaan ku jirnay sixru tafriiq aan ku jirnay horeyna waxaan usoo qaadanay sixirka xukunkiisa inuu xaaraam yahay qofka sixirka ku dhaqmanay inuu ku gaaloobayo qofka ninka sixir hala u tago su-aal soo weydiiyo yani oo sidoo kale uu ku kufrinaayo hadduu uu hadalkiisa rumaysto waxyaabahaas waxaan kasoo hadlan ku laabanayo sixirkii koowaad aan ku jirno sixru tafriiq oo ninkii isjecel iyo naagtii lagu kala geenayo waxaan soo ogaanay sixirkaas markuu ninka sixirhoolaha sameynaayo yani idinoo keensana oo dab ku jiro markaas wuxuu ku shubaa foox ur badan ama geedo ur badan oo ku shubaa jinnigaa imaanaya markaasuu leeyahay yaa la kala geenaa maanta waxaa leeyahay ninkaas iyo naagtiisa oo isjecel in nacab lagu beeraa la rabaa oo labadaas la kala geeyo inay isfuraan jinnigu wuxuu dalbanaa niri gabadhaas shaashkeeda alii keenoo leeyahay ama ninkaas garantiisii ama gabadha safaleytigeeda ama ninka yani koofiyadiisi waxyaaba dhididkiisi gaaraha la ii keenoo leeyahay marka loo keeno haddii waxaas la soo waayan wuxuu leeyahay yani tinta ka go-day hala ii keena gabadha tinta ka go-da hala ii keeno ama cidiyaalkeedii cidiyii ninka iska jaray cidiyadii hala ii keeno cidiyihii dayib wuxuu kaloo sameynaya yani haddii kalena saantiisa raadkiisa meel uu maray lugtiisi saanta hala ii keeno leeyahay dayib marka intii loo keeno jinnigia wuxuu ku akrinaya waxyaabo kaloo ku akrinaya jinniga qofkii wuu sixrayaa kadamba labadii qof waxaa is arkay isnacab oo sixirkii gaaray oo iscaynaayo islacnadaayo arkay labadii isjeclay oo shirkada ahayd ayagoo isfurayn waa arkay marka la dareemo intaysan isfurin ka hor qaabkee loo daaweyna sixirkaas qaabkee loo buriya qaabka loo daaweynayaan ka hadlaynaa waxaa loo daaweeya 3 marxalad waaye marxalada ugu horeysa waxay tahay horta ilaa iyo dhowr waaye ilaa iyo dhowr marxalada koowaad 12 ka koobanta midda koowaad waxaa waa horta adiga jabiga meesha aad qur-aanka ku saarayso jabi degan qol maasha allah diyaarsane qolka markaad diyaarsato waxaa qolka ka saarey sabir wax alla wixii sabir ku jira iyo masabir banaanka uga bixi maxaa yeele guri masabir ku jiro malaa'igta ma soo galayso guri masabir ku jiro yani malaa'ig ma soo galayso madina marka diin ilaahay qof saare marka ilaahay u kaasho masabirka iska bixi laba waxaa sameynay ninka xanuunsan oo qur-aanka asaaribtoo la sixiray ninkaas qoortiisa fiiri haddii ay ku jirto yani kuul iyo waxyaabo oo xirsi iyo xijaab iyo waxyaaba xirsi xirka oo gacanta lagu xirto qoorta la gasho iyo garabka lagu xirto iyo waxyaabaas xirsigaas ka gooy 3 maxay shirkiyaad waay adin waxaa rabtaa tawxiid rabtaa inaad diin u istaagtaa rabtaa 3 waxaa sameynay meesha aad ku saaraysay muusig iyo hees hadday ka shidan tahay dami yani muusigaas iyo heesaas laga saaro amara ku bixinay aniga qur-aan qofkan ku akrinaa leeda daaratin qofka inaan qur-aan idiin saaro yani heesaan guriga ka shidan hala damiyo video shidan iyo waxaas la damiyaa dheh 4 yani meesha aad ku saarayso waxaad ka banaynaysaa yani meeshaasi wax walba shariicada islaamka khilaafsan waa ka hadlay sida nin yani gabar oo isqurxisayo ama caariyaad oo si fiican aan u xijaabnayn gabadhaada qolka ka baxaa leedahay soo xijaabo yani adiga meesha waxaa u ogolaanaya bis nin sigaar wato oo kale waa u diidaysaa ama jaad cunaayo aniga waxaan rabaa leedahay gabadhan 2 qof oo yani aabeed ama abtigeed ama adeerkeed qof oo maxram ah maxramkeed hala joogo anu qur-aankaasaan ku akrinaya yani qof yani sunnada khilaafsan oo dhan yuusa iisoo gelina dheh 5 waxaa sameynaya yani ninka oo xanuunsan duruusaa siinay caqiidada ku saabsan waxaa leedahay aniga waxu ma caafiyo ilaah wax caafiyo aniga qur-aankan aan saara waa sifaadka ilaahay kalaamkiisi waa allah ugu dhawaana ilahay hadduu naga aqbalo ilahay caafimaad kugu daran waa sida aan ramid aan ka baryeena marka sidaas waa tawjiihadaa siinay 6 waxaa waa qofka yani xanuunsan oo yani la sixray yani dhowr su-aala weydiine si aad u hubsato yani cudurka hayo oo ama sixirka hayo si aad u ogaato noociisi tusaale waxaa leedahay ninka yani hal taraa zawjatak axyaanan bimandari qabiix yani xaaskaaga niyo ma aragtaa mararka qaar suurad xun oo daanyeer iyadoo og iyo waxyaaba noocaas ma aragtaa ama gabaryaa ninkaaga qaabkeedu aragtaa leedahay markuu ku imaado maxaad dareentaa ciriiri maad dareentaa walwal maad dareentaa marka labaad su-aasha labaad weydiin waxay tahay yani dhexdiina khilaaf ma dhaca oo joogto ah arrimo aan jirina ma isku qabsataan oo arrimo iska easy ah ama fudud ma isku qabsataan waxaa kaloo weydiinaya yani mararka qaar yani guriga banaankiisa adoo joogo iska raaxaysanayo ama qad iska isticmaalayo ama iska fadhiyo ama iska waradinayo hadduu ninkaaga kuu soo gala yani ama naagtaada kuu soo gasho nafsadaada ciriiri iyo yani ciriiri ma dareentaa iyo ciil iyo qof ciil hayo oo kale ma dareentaa ma noqotaa waxaa kaloo weydiinaya yani labadood waxaa weydiinaya marka jimaaca la sameynaya ama xiriir gogol marka gogol ama xiriir gogol la sameynaya ninka inaagtiisa markay isjimaacayaan jimaacaas ama xiriirka gogol
ciriiri iyo naceeb iyo dhibsi ma dareenta isagana u dhibsana adna aad dhibsanaysa ma dareenta waxaa kaloo weydiinay yani labadiini hurdada markaa hurdaysaan yani argagax ma dareentaa adiga waxaa leedahay nin argagax ma dareentaa adoo lagu bursanaayo adoo dabaq ka soo dhacaayo adoo meel cidla maraayo adoo qaylinayo kaligaa ma dareentaa su-aalahaas waa weydiinay qofka asaariis waxaa kaloo su-aalaha waa ku joogteynay ilaa marka daa hesho acraad yani astaamihii aan soo sheegnay oo sixirka lagu garanaya daa hesho hadduu ku yirahdo haa ciriiriyaan dareemaa hadduu ku yirahdo yani waan qarwaa bis waa marka waxba badana ogaato waxaa kaloo weydiinaya adiga wax mukulaalo yani dad cadcad maaragta oo ku bursanaayo ama dad madmadow oo ku bursanaayo ma aragtaa yani hurdada dhexdeed yani dhidid iyo ma dareentaa adoo argagax ku jiro cabsanaayo adoo qaylinayo dabaq lagaa soo tuuraayo ama libaax ku bursanaayo hadduu haa ku yirahdo ninkaas jinniga ku jiro oo sixirka keenay jinniga sixirka keenay ku dhex jiro intaas mid ka mid doo haa ku yiraahdo sidoo kale markaa hurdaysa ilkaha ma rugtaa ilkaha waxaa jira markay hurdayaan ilkaha qarram ilkahay cunaa ilko isku ruga hadduu ilkaha isku rugayana jinniga ku jira isna waxyaabaha su-aalahaas noocaas waa weydiinaya adi ayib sidoo kale waxaa amraysaa waxaa leedahay niyo soo weys qaadaan leedahay markuu soo weys qaato adna waa soo weys qaadani 8 waxaa kaloo siinaysaa yani qofka xanuunsan hadday dhadig tahay qof oo gabar hadday tahay yani ma bilaabays qur-aanka intaadan ku akrinin waxaa leedahay soo xijaabo dhar aad adag soo qaado yani sida surwaal oo kale xijaabo waaweyn oo kale hadhow waxaa laga yaaba inay rafato galgalataa laga yaabaa xijaabkii ka fiidma cawradeeda inay fiidmato saa darteed dhar culus waxaa soo qaadanay jirkaaga asturaa soo qaadaa leedahay sidoo kale waxaa leedahay gabar hadday tahay daawey gabar markay tahay waxaa leedahay يعني هدي سوي لبس در خفيف او هدي سوي لبس يعطر برفون سوق ويس على برفون كان waxaan ma ogola shariica islaamka iyo catarkan xijaab sharci soo qaada leedahay marka waa kaasa wajigaan iska daboolen shariic qaada in shariic soo xiradhay marka saas waa arimaas aad amareysaa marka ko toban waxa sameynay marka gabadhaas aad daaweynayso oo sixirka ayo waxa waaye ma daaweynayso ilaa maxramkeed uu fadhiyo ama ninkeeda inuu fadhiyo ama abtigeed ama aabeed ama walaalkeed ama wiili eedo u tahay ada maxaarimteedii mid kamid ah inuu joogo yani adoo kaligaa gabar qol ha ku saarin sababtoo ah labada qof sheedaana saddexeeyo marka gabar ha daaweynin ilaa inuu la joogo maahane ninkeeda iyo qof maxram u ah sidoo kale gabadha yani markaa daaweynayso qof kaliyason qol kula galin adi iyo isla galay iyo gabadha iyo ninkeeda ama qofka maxramku ahaa oo gabadhaas markay qeylisa qabanayay isla markaasna maxramku ahaa sida aabeedoo kale dadka kale iska saar 12 ilaahay u tala saaro awood maliya ciidan maliya ilaahay wadaan kula tala saartay dheh saasa sameeyay marxaladda koowaad waa intaas marxaladda labaad waxay tahay daaweynayso qofka xanuunsan madaxa gacanta ka saari hadduu dumar tahay ul inaa qabsato ul yar inaa qabsato ushiya yani madaxa ka saaraysaa fahmaysaa culamada qaar waxay leeyihin gabadha laftirkeeda dhib malaada in shareer wadato gacanta madax waa ka saari karta ay leeyihiin maadaama ay leeyihin laakiin sidaan ila fiican waxay tahay yani in qofka usha uu ku garaacayo uu wato inuu madax ka saaro gabadha hadduu nin yahayna yani madax uu ka qabto madaxaasi inuu ka qabto oo yani oo madax uu gacanta ka saaro uu ka qabto weliba kadamba dhegtiisa dhanka midigaa fadhiisanee adee laftigaa waa isxijaabaysaa ayatul kursi waxbaa akrinaya waa ismarinaya kadambe dhegtiisa midigtaa fadhiisanee waxaa ku akrinaya acuudu billahi min ashaytaani arajiim min hamzihi wanafqi wanafthi kadamba suurat lfaatixa ku akrinaya waa dhamaynee suurat faatixa markaa dhamayso suurat lbaqara bilaabe 5 aayad ugu horeysaa ku akrinee haddana waxaa bilaabe wattabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki sulaymaan aayaddaas ilaa iyo waxay geynaysaa aayaddaasaa dhamaynee waa aayadaasaa dhamaynaysaa ma fahamte marka aayaddaas dhamayso kadamba waxaa akrinaya isla suurat lbaqara wa ilaahukum ilaahun waaxidun laa ilaha illa huwa raxmaan raxiim ilaa laga gaaro ila aayaati liqowmin yacqiluun labadaas aayad ina fii khalqi samaawaati wa ilaahukum labadaas aayadaa ku akrinaya mar kastana aayad intaadan bilaaban acuudu billahi min ashaytaan rajiim ha ka hormarinay waxaa kaloo ku akrinaya aayatul kursiya 3 mar ku akrinaya waa bilaabi waa dhammeynay sidoo kale labada aayadoo suurat lbaqara ugu dambeyso aamana rasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmu'minuun ilaa laga soo gaaro fansurna cala alqowmi alkaafiriina ku akrinay sidoo kale waxaa ku akrinay maxaa la dhihi jiray suuratu ali cimraan aayadda oo ka bilaabanaysa shahid allahu anahu aayad 18 ilaa aayad 19 oo ah shahid allahu anahu laa ilaha illaa huwa walmalaa'ikatu ulul cilmi qaa'iman bilqisti aayaddaasaa ku akrinay labadaas aayad ilaa ina diina cinda allahi alislaam waxaa kaloo ku akrinay suuratu lacraaf aayaddu maxaa la dhihi jiro 54 oo ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati ilaa aayadda yani 56 57 aan dhehe 3 aayadaa ku akrinay
sidoo kale waxaa ku akrinaya suuratu yunus yani aayadda boqol toban iyo toddobaad waxayna ilaa muusa an alqi casaaka faidaa yatalqaf maa yafikuun ilah waxaa keenaysaa qaaluu aamanaa birabbi alcaalamiin rabbi muusa wa haaruun aayadaha sixirkaa ku celcelinaya sidoo kale waxaa ku akrinaya aayaddan suuratu yunus qaala muusa maa ji'tum bihi sixru ina allaha sayubtilu maa ji'tum bihi sixr aayaddii hore suuratu lcaraafi eed waxayna ilaa muusa tanna waa suuratu yunus ilaa laga gaar in allaha sayubtiluhu in allaha laa yusliu camal mufsidiin taas waa ku celcelinaya in allaha sayubtiluhu in allaha sayubtiluhu in allaha laa yusliu camal mufsidiin ilaaha burin doona sixirkan ilaaha burin doona sixirka ilaaha mana liibaanan sixroolayaasha ma liibaanan in allaha sayubti allah burin doona sidoo kale suuratu daaha imaanay suuratu daaha aayadda inamaa sanacuu kaydu saaxir walaa yuflixu saaxiru xaytu ataa aayaddaas waa ku celcelinaya inamaa sanacuu kaydu saaxir waxay sameeyeen waa sixroole dhagartiisii sixroolahana meel kastuu jooga ma liibaan aayadaasa ku celcelinaya sidoo kale aayadaha ugu dambeeya suuratu lmu'minuun afa xasibtum anamaa khalaqnaakum cabathan wa anakum ilayna laa turjacuun ilaa aakhiri suura waa akrinay waana ku tufay markastana tuu aa leedaha tuu dhanka midigta egtaa ugu tufee tuu aa leedaha ku tufee waxaa la rabaa candhuuftaada iyo aariyo candhuuf yar iyo aariyo isla socoto ninka xanuunsan oo dhegtiisa inay ku dhacdaa la rabaa yani microfon waa laga fiican yahay waxaa ka fiican microfonka qofka tuftaada inay gaartaa la candhuuftaada oo candhuuf buweyma candhuuf yar oo neef ama aariyo la socoto inay qofka dhegtiisa ku dhacdaa la rabaa marka microfon waa iska wax nafle ma ah waa laga fiican qofka tuftaada ha gaarto sidoo kale waxaa ku akrinaya wasaafaati safan bisinkaa ka bilaabee acuudu billahi min ashaitan rajim ka hormarsi aayadda koowaad wasaafaat ilaa laga soo gaaro ilaa man khatifa alkhatfata faatbacahu shihaabun thaaqib meesha sidoo kale suuratu waxaa ku tufaya suuraddan la yidhahdo suuratu laxqaaf baga ugu dambeeya wain sarafnaa ilayka nafaran min aljinni ilaa laga soo gaaro walaysa lahu min duuni awliya ulaa'ika fi dalaalin mubiin sidoo kale suuratu raxmaan aayadda yaa macshara aljinni waalinsi in istadactum aayaddaasa ku akrinaya ilaa laga soo gaaro yursalu calaykum ashwaadu min naarin wanuxaasu falaa tantasiraan puu aa leedahay dhegtaasa ugu tufee iyo madaxa ugu tufee sidoo kale waxaa ku akrinaya low anzalnaa hada alqur'aana aayadaha ugu dambeeya oo suuratu lxashri low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin ilaa aakhiri suura sidoo kale qul uuxiyaa ku akrinaya bisinka ilaa laga soo gaaro yani faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasad sidoo kale qul wallah ku akrinaya suuratu likhlaas suuratu lfalaq suuratu nnaas aa ku akrinaya intaasaa ku akrinaya marka dhegtiisa midigaasi tartiib oo degana u akrinaysaa 3 mar midiiba aayaddiiba 3 mar aa kusoo celinay haddii marka jinniga lagdado qayliyo waa weydiinaya waryaata hadhe magacaaga sheeg diintaada maxaa magaciisa diintu kuu sheego waxaa leedaha doo gaal yahay islaamnimada u bandhigay diinta islaamka u bandhigay macaanteedii waa islaamini hadduu ma islaamay ku yirin waxaa leedahay laa ikraha fi diin diinta la iskuma qasbaa leedahay annaga ujeedadeen xitaa gabadhaan nooga bax waxaa kaloo weydiinaya kusoo diray sixroole maa la shaqaysataa sidoo kale waxaa weydiinaya jirka intay ka degan wadnaha maa degantaa beerka maa degantaa madaxa hadduu ku yara meeshaasaa deganahay ka soo baxaa dhee gacanta midig soo fariisaa leedahay yani farta bidixda faryaryada oo midigta ah soo fariisaa leedahay ka dambe waa dhaarinaya waa la ballamaya marka cashirka waa dheeriya waqtiga sii socda marka dibaan kasoo dhamaystira wallahu aclam wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed